Maanta ayuu garab u baahan yahay, waa uu cilaysan yahay, waayo walaalkiisa ayaa ka maqan. Meelahan ayuu ugaarsi u soo doontay, balse ugaarsiga kadib markuu meeshaan oo biyaha gudbo ayuu waxa arkayaa dhurwaa oo aad u badan oo iyagoo taagan meesha imaanaya iyagoo ugaar soo doontay si xun ay u fiirinayaan. Xoogaa kadib weerar ay ku qaadayaan dhammaantooda, balse maanta libaaxu waa keligiisii, walaalkiisa ma joogo, asxaabtiisa ma joogto. Dhurwaaga oo zaid u cararaya meesha yimid, wayna ka baqayaan, balse dhexda ayay gashanayaan. Soo u dhahayo midba midka kale iska celi ayay dhammaan ku soo tuuganayaan oo waa uu baqayaa maanta. Ma haysto wehel, maanta ayuu u baahan yahay in la garab istaago, balse walaalkiisa ayaa ka maqan. Isagoo wax maansanaya dhurwaagii geesaha u cararaya ayaa wuxuu arkayaa inuusan maanta awood bahaynin oo markii midba aado midka kale jirkiisa qabanaya. Haatan ayay geesaha ka soo kalmareen oo dhexda ay gashteen si ay waxba ugu reebin maanta dagaal weyn ay u qaadaan. Mid markuu bursado isagoo yaaban oo aan waxba qaban karin ayuu iska kala cirinaya, balse way ku soo shimuumayaan. Haatan markuu u bogi waayo midoo bursanaa, marka kalena gadaal bay ugu imaanayaan. Midkay bursadaan maana mid kale baa gadaal ugu imaanaya. Isagoo waxba aan qaban karin maanta oo aanan wehel haysanin oo saaxiibkiisana maqan yahay iyo walaalkiisa ayuu meel xun wuxuu ku arkayaa walaalkiisa soo socda, balse lama gaarin. Waa odobo dhaxadka qaybta kale oo u dhiman inuu soo baxo walaalkiis, balse mar ura ay dhexda gashanayaan oo xun ay weerarayaan. Haatan waa ay socdaan dagaalkii cuslaa ee u dhaxeeyay libaaxa iyo waraabaha ayaa maanta halkan ka bilowday. Way jiidayaan oo jirkiisa bay cunayaan, waayo libaaxu maanta xaaladiisa ma sahlana. Si uu ugu baxsado halkan waa inuu helaa qof ka badbaadiya oo la helo. Walaalkiisa ayaa meel sare ka soo eegay isagoo la bursanaya libaaxii ayaa wuxuu soo arkay libaaxii oo haatan soo socda si uu ugu celiyo walaalkiis oo u garab istaago, waayo walaaltinimadu waa wehelka nolosha. Qof aan walaal lahayn waa sidii geed aan miro lahayn. Waayo markuu walaalkiisa ay arkeen dhammaan dhurwaayaashii way ka carareen oo waa uu bursaday dhammaantoodii, way ay baxeen. Kadibna way isku imaanayaan oo madax ay isgelinayaan, waayo walaaltinimadu ma ahan mid aad u yar, waa mid garab istaag aad iyo aad u weyn. Waayo hadda waxa uu dareemayaa farxad iyo dhoola cadeyn aad iyo aad u muhiimsan oo waa isku ruganayaan oo waa ay baashalayaan. Asxaabta daawanaysa channelkeena waxaan leeyahay kulanti wacan oo xiiso leh, sidaas nabadgelyo.